بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحرونت الله تلين تدتك يهرم برنت شقذا دكتوري سفين إنه ولا شيء إن هذا يساوي دكتوري سفين ولا ليال وحن ربا إن الله أن كهالله أما إن لو ذاقه أرما مارتي آتكو اللي بدن أو مارتي كتيرة دتك مارتي بالشدة ضعيف كاه أما آد وحنوصن ama maartay dhibanan oo ku dhiban meel kastaba dadkuna ay ku dhiban yihiin indhahana aysan u roonayn dawladnimadana aysan u roonayn islaamnimadana aysan u roonayn markaad aragtid runtii maalin kasta waxaan ka hadlaa sida maartay dadka maartay daroogada dadka noocyo badan baan uga hadlaa laakiin maanta waa nooc yar oo ayagii oo ka duwan oo nooc kale taa maanta waxaan rabaa talada aan bixinayaa waxa waaye dadkan jiran oo tacbaanka jidadka yaaliyaala oo ayaguna isbaabi'iyeen oo maartay isbahdileen oo habeenkii dhibaatada markii dadka ummadda caafimaadka qabtaa guryahooda seexdaan ayaguna isku soo mirsada rag iyo ka naagaba waxay rabaan isku sameeyaan isku meel shaqaha iyo meelaha laga kala tegay oo laga kala dheelmaday iyo habeenkii isku baabi'iya oo eber iskaga dhiga oo kiifiyo xataa oo ma fiyoobe kii xataa cidiisii inta ka soo cararay isagoo jiran oo waalan meelahaas markuu iskaga dhaco maaragtay ay kuwa kale oo cabtayda ay baabi'iso ummadiina waxayba noqotayba halkaas hadaa intaa iskaga dhacdid xataa adigoo fiyo xataa dhulka intaa tirantirooti dhulka ku dhacdid wax kaa qaadaya 12 maanta male mid waalan oo soo waasho bal iska daaya talada aan dhiibayaa marka waxa waaye waxaa u talin kara maamulka marka waxaan ka codsanayaa oo maamulka jira oo guud oo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa dadka jirano dad bay leeyihiin dadka waalana dad bay leeyihiin in maartay dadkaas dadkii lagu xukumo in lagu xukumo maartay dadka waalan inay dadkoodii qabsadaan oo qofkii waalan ama oo jiran oo meel yaala ama dhibaataysan in qofkii dhalay ama qofkii la dhashay ama qofkii walaalaa lagu xukumo haddii sababta waxaan aragnaa maalin kasta dadka waalwaalan oo meelaha iska yaala markay qamrada iyo balaayadii wax kasta ka dhargeen in la qaado oo la xirxiro oo xabis lagu sii bahdilo oo xabis lagu sii dilo waxaan leeyahay xabis iyo meel kale iyo meel xarun dhaqan celinaya lagu bahdilin dadkooda laftigooda ha la yiraahdo qofkan cisho quraan saaro hayso haddii maaragtay wixii ka badbadan waa la arkayaa laakiin dad u baahan in la hayo oo gurigiisa joogi kara oo cunto la siin karo oo meel lagu hayn karo dadka ayagaa dhalay dad xoolo la habaa jira la iskaga sii daaya banaanka oo maalkoodii la haysto maalkoodii la cunayo baa jira oo ehelkii haysan lahaa intay ka fakadaan markay ka fakadaan xataa qaarkood intaasoo sano ay ka maqan yihiin marka anigu waxaan ku talin lahaa tala ahaan aan leeyahay dadka jiran oo duurka daadsan dadkooda ha loogu yeero qofkaan qabanayn laftigiisa ha la xiro asaga ha la xiro xabiskii ha la saaro ama xoolaha hadduu leeyahay inta looga qaado dawladda ha ugu xanaanayso meel xanaanaha loogu geeyo dadka ummad baa xanaanayn kartee ummad xanaanaysa ha loo geeyo waxaan ku talinayaa dadkan dhibaataysan in dadkooda wax ka qabtaan in dadkoodu meel geeyaan in dadkoodu haystaan haddii dadkan ma ahan dad meel cidlaa ka soo baxay ma ahan dad geeda ka soo baxay dadkan waa islaan dad masaakiina waaye maadaama ay masaakiin yihiin waa in masaakiinnimada lagu ilaalisho oo lagu dhaqa oo lagu haayaa oo ehelkoodu qabsado waxaan ka wadaa ehelkoodu inuu qabsado waxaan arki jiray maaragtay dawladdu xanaanayso oo meel xanaanaa geyso anigu ma arko runtii dawlad dad meel xanaano geynayso oo hadday xataa ayaan ku hayso ayaan ku sii haynayso hadday jirayso meel dawladdu ku xanaanaynayso wixii dhibaataysana dhibaatada uga baxayaan wixii waalana ayadu ay haynayso anigu ma arko hadday jiraanna ayaan markay haysanoo xataa qofkii dhibaatadii ka baxa oo qofkii xataa raysto ayaa dadkiisii anaga waa noo fiican dadka waa la soo kaxaynayaa haddana suuqa lagu sii daynayaa mar labaad marka dhibaataas ayaa jirta waxaan leeyahay marka dadka hadday waashaan iyo hadday fiyoob yihiin iyo hadday alcohol cabeen intaba dad baa leh dad fiyoob baa dhalay dadka fiyoob ha lala xisaabtamo ha la soo qabto ha la xirxiro ayaga maxkamadda ha la saaro dadkan waalanu xoolay leeyihiin
haddaysan xoolahooda ku hayn karinna ha la soo gudbiyo dadka maaragtay meesha lagu xanaanaynayo iyo ayaga xoolahooda ha la isku soo gudbiyo sababta dad la nacay oo laga tegayba waayo dadkaanu oo eber ah boqolaal qof oo qurxoonaan karto beri dadka wax u qaban karto ummadda wax ku tari kartaana jirta sababtoo kumaankunay ka bateen kumaankunka dhun oo maantay soomaaliya oo dayacano ma wada xumaanahayaan danaa wada haysa waa arkayseen wiilka yar youtuber ah nin oo wuxuu ka soo kaxeeyey jidkii markuu ka soo kaxeeyey isagoo tukanaya weliba foorfoorsanaya dharka uu qabaa xabag bay yeesheen xabag baa dul saaran xabag 50 sano madaxiisana kama furin waxmana dharkiisana kama uusa furin waa ugu yimid walba geeyey real cabdiqaadir real meel dhaha maaqan yarkaas qayr badan Allah siiyo meeluu geeyey arkii ka bixiyey waa qurxiyey waa sharfay nin hadlahayo qurux badan oo hadda maantay cid walba hawaysanayso noqday walaahi dadku dad bay leeyihiin dadka ha loo yeero dadka ha qabsadeen haddii qabsan waayana maalkoodii ha lagala wareego ayagana xabis ha loo tiraan leeyahay wallaahi marka waxaa iga keenaya dayacaadda dadka la dayacayo oo dhibaataysan baa iga keenaysaa intaas in dadkoodii xoolahoodii ku raaxaystaan caafimaadka qabay ehelkoodii ay bannaanka ku sii daayaan dhibaataysanaa ayaa waxay iga keenaysaa inaa iraahdo ayaga laftigooda ha la xirxiro aad baan idiin salaamahayaa tawfiiqda allahna waafajiyo ilaahay nama waalo ilaahay khayr badan hana siiyo kuwa isqaato oo is aruursado oo is wanaajiyo is sharfo allah naga dhigo kuwa dib isku fiiriyo dadkooda masaakiinta xanaanaysta allah naga dhigo haddii qaran ay tahay iyo haddii ehel maaragtay ay tahayba intaba ilaahay annagana maaragtay hadalkeena aan u hadlayno u doodayno ha noogu dambi dhaafo hana nagu xafido ilaahay idankiisa aakhiriya adduumna allah nagu siiyo xoolo ugama rabi waxba ugama rabi dhibaatadaas un baan ka hadlahayaa waa idin salaamahayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu